عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قالي وادي سلامي مقعي وأحمد زين maanta waxaan idiin wadaa cashiro taxane inoo noqon doono hadduu ilaah yiraahdo waxaan ka hadlaynaa ocular anatomy iyo physiology aan ka hadlaynaa structure-ka iyo shaqada noo qabatay indhaha ocular cashiro oo noo noqon doono taxano ku dhawaad gaarayo 16 ama 17 cashir insha Allah cashiradan kaga hadli doonana waxaa maanta daafur inoo noqon doono orbitalka godka isha maanta ka hadlaynaa godka isha markaan ka hadlaynana intaan waxaan ka hadlaynaa muscleska ee leedahay godka isha sidoo kale boniska laga helo lafaha laga helo darbiyada iyo openingka intaana maanta ka hadlaynaa hadduu ilaah yiraahdo haddaan ka hormarno orbitalka oo maanta ciwaankan uu yahay orbitalka muxuu yahay orbitalka waa bone waa laf waay kaasoo ku jirta in the skull horaan ugu soo hadalnay waa god ku dahaaran madaxa globe of the eye ku jirtaa marka skullka ka jirtaa waxayna sameysaa globe of the eye ishana ay dabooshaa eyeballka dabooshaa so marka iyadana waxay taalaa labada dhinac ee sanka ayay taalaa oo laba god oo bone ayaa jiro so marka labada dhinac ayay taalaa waxaan ka hadlaynaa borders of nasal cavity-ga anterior waa ethmoid air cells posterior waa sphenocytes-ka superior waa orbital anterior cranial fossa oo frontal orbital bone inferior-gana waa maxillary synetes iyo platine air cells intaan waxaa loo yaqaanaa borders of nasal anterior orbitalka loo yaqaanaa so marka volume-ka orbitka ku jira maanta ka hadlayna hadduu ilaah yiraahdo volume-ka ku jiro dadka adultiga wuxuu gaarayaa less than 30 centimeter 30 micrometer cc-dan waxaa laga soo gaabiyey micrometer laga soo gaabiyey adultiga long ahaan wuxuu gaaraa average-ka orbitalka wuxuu gaaraa 35 height on long ayuu gaaraa 45 oo wide balac ahaan ayuu gaaraa proximalna wuxuu gaaraa 1 centimeter so marka volume-ka kasoo hadalnay orbitalka wuxuu yahay kasoo hadalnay orbitalka waxaa loo qeybiyaa kala qeybiyaa bone orbital 7 laf ayuu leeyahay orbitalka laftiiskood waxaa loo yaqaanaa frontal bone zygomatic bone maxillary bone ethmoid bone sphenoid bone lacrimal bone iyo platine bone intaan waxaa loo yaqaanaa bone of orbit loo yaqaanaa waxaa kaloo jira muscles ay leeyihiin orbitalka waxaa waaye 4 rectus oo superior rectus medial rectus lateral rectus inferior rectus 2 oblique superior oblique inferior oblique orbicularis ocula iyo vertebral bulbar intaana waa muscleska ay leeyihiin so marka waxaa jira walls uu leeyahay 4 wall ayuu leeyahay 7 bone iyo 8 muscle kasoo hadalnay wallska darbiyadiisa 4 wall ayuu leeyahay darbigood waxaa loo yaqaanaa roof wall waxaa ku jira 2 bone 2 lafaa laga helaa wallka labaad waxaa loo yaqaanaa floor waxaa ku jira 3 bone layerka wallka saddexaad waxaa loo yaqaanaa lateral waxaa ku jira 2 bone layerka afraad oo ugu dambeeyana waxaa loo yaqaanaa medialka waxaa ku jira 4 bone haddaan ka hormarno roofka waxaa laga helaa frontal bone iyo sphenoid bone oo lesser wingka laga helaa floorka asigana waxaa laga helaa 3 lafaa laga helaa oo maxillary bone platine bone iyo waxaa laga helaa zygomatic bone lateral wallka waxaa laga helaa 2 laf oo zygomatic bone waxaa kaloo laga helaa great wing of sphenoid medial wallka waxaa laga helaa inferior process of maxilla lacrimal bone ethmoid bone ethmoidal bone iyo sphenoid bone laga helaa waa walliska ay leeyihiin iyo walliska of orbitalka 4 opening ayaa jiro qaybta ugu dambeysa soo gaarnay 4 opening ayuu leeyahay 4 meel ayuu ka furan yahay orbitalka meesha ugu horeysa oo ka furan yahay wax maraan ka hadlayna insha Allah orbitalka meesha ugu horeysa wuxuu ka furan yahay inferior orbital fissure-ka wuxuuna inferior orbital fissure-ka waxaa laga helaa qaybta dambe ee posterior orbitalka laga helaa oo maxillary iyo great wing u dhexeeya waxaana maro maxillary nerve zygomatic branch iyo inferior ophthalmic vein waxaa mara vein iyo nerve iyo waxaa kaloo maro sympathetic nerve ayaa mara superior orbital fissure waa god meesha labaad oo u furan yahay orbitalka wuxuu yaalaa locate great and lesser wing of sphenoid oo qaybta dambe posterior ayuu yaalaa waxaa maro nerve artery vein ayaa maro nervaha maro waxaa ugu horeeya lacrimal nerve frontal nerve trochlear nerve oculomotor nerve abducent nerve nasociliar nerve iyo superior ophthalmic vein
qaybteena ugu dambe openiska afar aan soo sheegnay. Ka saddexaad waxaa optic nerve, optic canal. Optic canal wuxuu yeelaa posterior orbital synetis oo sphenoid clusterkeeda ayuu yeelaa, waxaana mara artery vein oo ophthalmic artery iyo optic nerve maro. Optic nerve waa meesha ugu dambeysa uu ka furan yahay, labadan waa isku xiran yihiin, oo kan divide inta badan waxaa loo kala qabaa, wuxuu kala qaybiyaa artery topograph lahay iyo nerve seed. waa idinkaga mahad celinaya daawashada videogan. waa cashirkeena ugu horeeya ocular anatomy and physiology. caafimaad idin rajeynaya insha allah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.